الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته waxaynu soo aragnay qisadii aynu hore u soo qaadanay qaa'idka xun ama hogaamiyaha xun ama siyaasiga xun iyo calaamadihiisa fircoon baa tusaale u ahaa caawana waxaynu qaadanaynaa siyaasiga wanaagsan iyo tilmaamihiisa ama hogaamiyaha fiican sifaatu lqaa'id saalix qaa'idka wanaagsan tilmaamihiisa nebiyullaahi sulaymaan baa tusaale u ah calayhi الsalaam oo qur-aanku wuxuu ka warramaa niman boqor ahaa liita oo laga dheeraanayo dhaqankoodii iyo niman boqor ahaa oo wanaagsan oo dhaqankoodii la raacayo oo tusaale uu yahay nebi sulaymaan iyo dulqarnayn sifaadka fircoon soo aragnee kuwa cagsigood buu leeyahy nebi sulaymaan hadduu fircoon dadka qaybinayo si uu xukumo nebiyullaahi sulaymaan wuu ururinayaa si uu xukumo jinka iyo insiga iyo xayawaanada waxoo dhan way midaysayn iyagoo cadaalad lagu hogaaminayo iyo sharciga u yaala marka sifada ugu horeysa waxa weeye qofkan inuu baadi doono ummad urursan oo calal xaqa ku urursan inuu baadi doono waa taa arkaysa loo soo ururiyey loo soo tubay dad wada danaynaya oo wada jecel oo kala dhawaysanaya فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك dabacsanaan iyo jilaac bay dadku kugu soo urureen baa ilaahay nebi maxamed haddii kale waa lagaa kala yaacina sifaadka qofka qaa'idka saalixa ah ee wanaagsan waxa weeye hadduu alku fircoon aniga ka lahaa nebiyullaahi sulaymaan fadliga iyo awooddaba ilaahay buu celinaya haadaa min fadli rabbi liyabluwanii ashkuru am akfur waxaanaan helay waa fadli ilaahay buu leeyahy ina haadaa lahuwa alfadlu lmubiin kani waa dheeraad weyn qaala rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calay wuu ducaysanayaa ilaahw deeqada aadi siisay ilaahay waafaji shukrigeeda markaa ma qiranayo isagu awooduu leeyahay ee fadliga iyo nicmada iyo awoodda intaba ilaahay buu celinaya qaa'idka wanaagsan dhaqankiisu ilaahay baa sidaa inoo yeelay ilaahay baa inoo waafajiyey in shaa allahu arrimaha kale waxaasaa ku badan kan kalena waanu yeeli iyo waanu yaali iyo waanu ka shaqayn iyo waanu liqi iyo waanu ka damsiin baa dhaqankiisu yahay qaa'idka saalixa ah ee wanaagsan sifadiisu waxa weeye innahu qariibu min annaas dadkiisu u dhow yahay dadkiisa godobka muu geline waxay dareemayaan inuu u shaqaynayo oo u adeegayo maslaxaddooda ay ku jirto iyana way ku dhow yihiin isna wuu ku dhow yahay bal u fiirso ninka ummaddaa dhan hogaaminaya shimbir buu tebayaa eeg watafaqada طayr faqaala maa liya laa ara alhudhuda am kaana min alghaa'ibiin xabad shimbira balka war waxaa soo ummadaa oo isdhex socda ninka soo helay nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam isagoo dagaalkii tabuuk 30 kun oo ciidana hogaaminaya ayaa markii yurub la gaadhay ayaa wuxuu leeyay wararta ninkii abudalxe mee cafwa ninkii kacbu bnu maalik mee kacb bnu maalik ma hayo mar kalena nin soo socda ui kun abaa khaythama isna maqnaaye isaga laftiisii noqo balka waran marka taa waxaa keenaya u dhowaanshaha uu qofku dadka u dhow yahay hadduu isaguna janno yar ku nool yihiin iyaguna diiqadii iyo cadaab ay ku nool yihiin ay kala caalam bay yihiin muxuu garanba dee kuwooda u waaweyn iyo acyaantooda maa yacrif huwa fii caalam wannaasu fii caalam haani marka waa inuu qofka qaa'idka ahi dadka ku dhow yahay waxaana keena inuu ka firdhado kalsooni darradu ka qabo iyo meeshuu xoogga ku haysto iyo baqaha uu isleeyahay way ku dili taasaa inta badan firdhiya oo inuu meel isku soo xidho keena laakiin markay dadku dugsanayaan ay jecel yihiin ay ku soo ururayaan waa qariib min annaas qaa'idka wanaagsan sifadiisu waxa weeyaan dowladdiisu waa dowlad diineed weeye dowladdiisu diinta u adeegaysa dunya uma noola taana wuxuu ku rabeeyey nebi sulaymaan shacabkiisa iyo cidda uu xukumaya xataa shimbir waa shimbirkii hududka ayaa markuu qoladii reer soo booqday waxa uu leeyahy an laa yasjuduu lilaahi aladii yukhriju اlkhab'a fi الsamaawaati wاlard war wuxuu xumaa dadka sanamka caabudaya maxaa ahay maxay ilaahay ugu sujuudi waayeen waa shimbirkii ilaa uu tababaray oo caynkaa leh nebi sulaymaanna markuu qoladaa fariinta u diray boqoradiisaba waxa uu leeyahay
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أنو قال كبرويس وين يوم بهنية إذنكم مسلمين كاليا وركب أنت سكولية ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قال كبرو ما بهنية إذنكم إسلام كاليا حق الدنبنا وحوري ارجع إليهم بهديتهم ورد هدية دولة على أنه هنون بانو الله صعناه وندت كل دونينا هدية مرة بنه مركز الدولة دا قائد كونايسن دولة دي سدين به قامسوا الدولة دينات كان كلنا الدين الآن بأثروا قائد ككلا دين تيسك تركيا دين تي نقصان وأركان دين تي كفوا قادان وبين تلاشكوها يستبع عالمك دولة عالم كوا لو قال يهدان الدين إسلام هو قامنين دين مركز لنا هو دين الإسلام ورضيت لكم الإسلام الدين قصة محور كيكو وريجي سوات ملكة الصلاة أما بقرات دي هرسوا مركز أركتين وهدية ديري ووحكى الآن وأقبلني مصلحات هنا ويس صور ديبته وقدام بين تيبا وحي لا هاي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وحن هو قاسم إلهي بأنه هو قاسم أنا قال سليمان لسمان الله صعنا يا مات waxay aragtay wax kale inaanu shaqeynay ilaa inay hanuunto mooyaan sifada afraad qaa'idka wanaagsan waxa weeye mid cilmiga dugsada iyo aqoonyahanka iyo culimada qaa'idka liitaana wuxuu isleeyahay ceebtaada ay fashilin iyo jahligaaga iyo xumaantooda oo dadka aqoonyahanku la dagaalama cilmigu qiimo kama la agtiis cilmi diineed iyo mid maadi labadaba قصة وحيابها حنبارسن تاع هنون كاكسك هذا علم بآد وقم وقنية وعلمنا منطق الطير قال الذي عنده علم من الكتاب وأوتينا العلم من قبلها إرجع علم باصرنا ونقنية علم جا عيسى كل أكتي سيه الكيس علم جا صور روح التنافس السماء ضدك ويكتر تميان بهالكيا سوق هذا عرش جه هالكايا عليه كي علمي قال هذا وحول ليه اسم الله الأعظم كي يقاني أنا سوق هذا عفريت باترتن كقيب قليه هل كيا دسيا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وترتن كي اسمي معماري جها نين كان يستقعها هودود كلا يدعى ما شبر كاس عقاب متيسنة يبو يسكتك لكن علمي بقى لقوا عفيه علمي وسوكر ليه معلومات ودولة الإسلام كو كاني أيها لقوا عفيه ولا مع علمي قاسات كانت هتاوى لقوا عفيه أحطوا بما لم تحط به بولي لو يقان لقد كلها الله يا سليمان ووجي إلا عقابي مركزا وحلو ورآنا ذهينية معلومات بانها إياه ما سيدا ساده يساده ولا وسامح إذا مركزا دركتا ومده قامين أو لدى قال أنت أقويها كمد دينادي يمد دويا waxay tilmaamaysaa dictatornimo iyo jahli iyo sifaxun wadaqankii fircoon weey aniga aqaana aniga idhi ana idin sheegaya diin iyo dunyaba aqoonyahanka liita ama siyaasiga liita uu ka fatwooda oo isaga muftika cid waxba uma oga ma aqaana ma yiraahdo idan markaa shanta sifo ayaa ah kuwa baariska ah qisada markaan eegaga aad inooga muuqanaya waxa tusaale weyn ugu sugan yahay dadka hogaaminta ummadda galaya inay qisaska quraanka akhriyaan oo wixii lagu liibaanayna ay raacaan wixii lagu lugoayna ay iska ilaaliyaan اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وسبحان ربك